waayahay halkaan nagala socotaan warbaahinta Chase Media warkan waxa idin la socodsiinaya anigoo Ismaaciil Xirsi Cigaala qodobada aan wararka idinku haynana waxa kamid ah shirkii magaalada Gaashaamo ku qabsoomayay oo dhamaantiiba fashil iyo afkala qaad kala yimaadeen odayaashii halka loo igmaday kadib markii la waayay qoladii dhulbahante ama reer Buuhoodle qodobka iyo qodobo kale oo faahfaahsan oo idin haynaa soo dhawaada daawadayaal subscribe YouTube-ka haddaanad hore ila joogin haddii aad hore ila joogtana like iyo share xagaaga waayahay qodobka ugu muhiimsan caawa aynu kaga hadlaynaa halkan shirkii Gaashaamo ee Jimce ilaa 10 casho loo fadhiyay afar geesood baa laga yimaanay shirka dhamaantii af kala qaad buu ku dhamaaday muuqaalada qaar kamid ah way idin la daawan doontaan muuqaalada qaar kamid ah ergeygii halka tagay bal waxaan soo qabanayaa Maxamed Fadhiyare Chief Caaqil Maxamed Fadhiyare ila daawada dhulbahante ragbahay anu qayb kama lahayn reer mana xiriirin marka anagu waxaan wardaan iska tagno mar hadaan meeshii inoogu imanay soo joogideedo qurxma halka hadaynu kaga nimaadno Chief Caaqil Maxamed Fadhiyare waxa uu cadeeyay oo shaaca ka cadeeyay in la ballamay in loo yeeray nabadgelyadana xagga Soomaaliland dabada laga riixayay iyo meelo kale waayahay qoladii lala ballamay iyo cidii loo soo qaybiyay reer Buuhoodle iyadoo markii horeba aan ka mid ahayd nabadgelyada halka laga raadinayay sababtu tahay nabadgelyo caam ma ahayn reer Buuhoodle iyo reer Qorlugud ayaa wada hadaladan sida uu sheegay waxa jiray waftiyo fara badan oo soo dhaweynaya shirka iyo culimo awdiin dad badan oo nabadda dabada ka riixayay balse laakiin muddadii ay halka joogeen oo ku siman ilaa 10 casho ilaa 11 casho in aan wax cid ah oo soo agtaagtay oo ka socda reerka iyo wax nabadgelyo doonaya wax raadinaya in aanay jirin sida wararka ku soo gaareen Buuhoodle ka imanayaan waxa uu sheegay in ay iyaga laftigoodu dagaal hore iska horimaada halka ku dhaxmaray kadib markii in dadkii kale ee shacabka ahaa ay diideen iyo xukuumadoodii ay diideen in haba yaraatee shirka qoob la geliyo waayahay laakiin taasi waxay quus u tahay nabadgelyada dhulbahanta yiraahdeen waa doonaynaa in caawa la soo gabagabeeyay intay leeg tahayba marka waxa halka kaaga dhamaysa wax nabadgelyo la yiraahdo oo kadib lagaga wada hadli doono habar jecle iyo dhulbahanta dhexdooda inaanay jirin ugu horeyntiiba waxa waraaqaha loo soo gudbiyay sida hadalkiisa ka dhadhantay waxa kamid ahayd inagoo laba dawladooda in wada hadlo taas waxa weeye daawadayaal aragtidaada commentiga nagu wadaagaysaa sidee nabad loo dhalin karaa ma loo adeegsan karaa iyadoo laba dawladood leeyahay in la iska hor yimaado mise waa waxaan dhacayn sababtu tahay Soomaaliland waxay raadinaysaa qabiil kamid ah qabiilada Soomaaliland oo jabhad samaystay oo gooni u baxay halka SCC-na ay raadinayso maamul dhisan oo Soomaaliland la gorgortaba bal farqiga u dhaxeeya aragtidaada commentiga nagu waraagaysaa waxay la tahay kulli nabadda wax kasto lagu heli karo in lagu baadi dooni karo balse laakiin taasi waa dhaawaca Soomaaliland mana ogola kulli shacbiyada Soomaaliland ku nool isaaq iyo daarood wixii maanta Soomaaliland gudaheeda jooga ma ogola taa hadaba waxa weeye nabaddu laba geesood bay leedahay ma habar jecel dhulbahanta laga wada hadlayay ma Soomaaliland iyo Khaatuma laga wada hadlayay taasi wali wax cadaan ah oo bisil ma aha balse laakiin wax nabadgelyo hadal hayaaba isma soo taagin meesha lagumana arag waxaa jira hadaba warar fara badan oo been abuur ah iyo in isimada laftigooda iyaga isqabteen sababtu tahay gabadhan codkeeda halkan bal ka dhigayso isimada laftigooda la yaboohinaya leeyahay uu tarasuu weetay weeye ciidankii waa la jajabiyay reer meeshii shalay lagu jajabin jiraa lagu bilaabay nololay ma taalo waayahay waxay la tahay kulli su'aasha ay ninka weydiisay waa ninka wariyaha su'aasha ay weydiisay waxay isimada laftigooda xagay qabteen meel kasta ha qabtaan balse laakiin cid isimada laftigooda ay soo igmadeen ama nabadgelyada u soo direen ma jirto waxa colaad loo diray mooyaan qodobka hadaynu halka kaga nimaadno waxa jira xildhibaan ka soo jeeda beesha loo yaqaan Sabaroon ama Gadabiirsi hadba sida loo yaqaan oo ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliya sharci dejinta ninkaas soo gabi ahaanba xilkii uu hayay laga xayuubiyay iyo sababaha lagaga xayuubiyay ayaynu isla eegi doonaa
waxaase laakiin quus ay u noqotay beeshii sabaroon ee u han weyneyd maalinun in ay calanka soomaaliya hoos tagaan qaar ka mid ah taasi waxay noqotay wax loo quus gooyey sababtu tahay nin dhintay oo la odhan jiray cali khaliif ayaa hore u sheegay wuxuu yidhi haddaa maqashaan somalilan ayaa la rabaa ama soomaaliya somalilan la hadlaysa lama rabo cid kale waa beesha dhexe taas waa run weeye xildhibaankaas waxaa ku dhacday kulli cunsuriyad waxyaabo cunsuriyadaha ka mid a sababta xildhibaanka shacab baa doortay shacbiyad buu ku fadhiyaa meesha cidda eryi kartaa waa ayo sharcigu si goormuu eryi karaa sharcigu wuxuu eryi karaa marka qodobo la waafajiyo dastuurka ka mid ah oo lagu eryi karo xildhibaanka sababta shacbiyad buu meesha ku fadhiyaa waxay la tahay kulli xildhibaanada reer waqooyiga ka socdaa iyaga kootay meesha ku fadhiyaan balse laakiin kootada laftigeeda shacbiyadu weeyaan shacab baa dee u meeshan u yimi xildhibaanka haddaba maanta xildhibaanka qaranay sida hawsheer lagu eriyay danta laga leeyahay maxay tahay danta laga leeyahay waxa weeye in lagu bedelo qof kale oo la rabo oo wax ku soo kordhinaya soomaaliya qasaanqaskeeda ama somalilan khalkhalgelinteeda wax ka soo kordhinaya ayaa la rabaa meeshan la keenaya taasina waxay la tahay kulli xildhibaankaasi isaga laftigiisu hunguri weyn kama sii qabo haddii uu hunguri ka qabo kulli dacwadu furan lahaa dastuurkana la soo adeegsan lahaa balse laakiin Soomaaliya waa qofkii xoog weyn waayahay qodobkaasi waxa weeye qodob aan bislayn sababtu tahay xildhibaankaasi eriga waxba u dheer beeshii sabaroonna waxaan leeyahay Soomaaliya waad aragtaan sida ay idin codsureedeysay airportka leedinku joojinay habliya idinka guursadan xitaa dib leedinku soo celinay xildhibaanadina waad aragteen madaxweynayaal hore oo tartamay oo sabaroon ahaa oo hal cod oo codkaasuna kiisa ah waa jiray bal sababta kuwa calanka buluugaasta ay u sitaan iyagu commentiga ka soo bixiyaan haddii ay u han weyn yihiin iyo haddaanay u han weynayn cidda la rabaa marka hore waa beeshan isaaq walaa dhulbahantee walaa warsangeli walaa sabaroon walaa ciisaan waxba lagu falay hadday tagaanba laakiin haddaan anagu intaa tagno intaaba annaga ka mas-uula annagaa masiirkooda gacanta ku qabanayna waabaana u soconba wadi salaamaya mar kale waxaa idinka codsanayaa subscribe tiraha youtube-ka share garee dhammaantiin akhyaarta igu xidhanna waan u mahad celinayaa sida ay noola shaqaynayaan ee wararka xaqiiqada ku saabsan uga sugaan halkan wadi salaamaya dhammaantiin